السلام عليكم. Ciwaanka kor kusoo aragteen waxaan rabaa inaan ka hadlo qofka bini'aadinka ah waxaa lasoo gudboonaado marmarka qaar ciriiri. Qofka bini'aadinka ah markii uu noloshii ku adkaato oo ciriiri galo waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo maxay tahay. Saada ciwaanka kusoo qoray waxaan dhahay nolosha markii ay kugu adkaato qofku jecel raadso. Nolosha markii nagu adkaato inteena badan bini'aadan aan nahay dembiyo fara badan aa naga dhacayo. Haddii dhaqaale yari ay kusoo wajahdo oo kale, haddii qof aad jeceshahay aad weyso oo kale, haddii caafimaadkaaga aad weysid oo kale, wax aad qaali kuugu ah markaa weysid maxaad sameynaysaa? Maxay tahay inaad sameysid? Waxaan rabaa inaan kula wadaago haddii nolosha kugu adkaato waxaad raadsataa qof ku jecel. Waxaa problem ah in agtaada uu ka dhow yahay qof ku challenge gareynaya oo problem kugu abuuraya inuu agtaada ka dhow yahay. Qofkaas haddii uu agtaada ka dhow yahay markii ay noloshu kugu xun tahay problem kala sii wajahaysaa. Actually xaqiiqada waa taas. Laakiinse markii aad ka ag dhowaatid qof ku jecel oo madaxa kuu dejiya oo problemka kula fahma dhanka uu u jeedina fahmi kara, adiga erayadaada dhegeysan kara, haddii qofkaas aad ka ag dhowaatid nolosha problemka ku haysta, culeyska ku haysta xoogaa yar wuu kala dhimanayaa. Saaid uma kala dhimanayo problemka Allah kaa saari kara. Laakiinse haddii waxaa kasii daran qof ku neceb oo ku challenge gareynaya aad ka ag dhowdahay, actually nolosha waa soo baari kartaa. Qof ku jecel laakiinse markaa ka ag dhowdahay oo garabkaaga noqda waxay dhib haddii problemka oo dhaqaale uu yahay dhaqaale kula garab taagnaada. Haddii hadal wanaagsan ay tahay wax ugu muhiimsan waxay tahay qofka markuu problem galo meesha ugu badan ee shaqo gasho waa maskaxda. Anaa ku dhahay qofka markuu problem galo loogama baahna xoog loogama baahna. Qofka markuu problem galo loogama baahna maxaa la yiraahdaa inuu boodboodo loogama baahna. Inuu problem galo loogama baahna. Sababtoo ah sabar waxay tahay meesha ugu badan ee problem aad ka dareemaysid waa maskaxda. Meesha ugu badan ee problem ka dareemaysid waa maskaxda. Marka waxaa u baahan tahay qof erey wanaagsan ku dhaha, niyadda kuu dejiya, ku yiraahdo wax walba way dhacaan, problem adduunyo waaye, adduunyada inta badan waa wax aan la jeclayn oo problem iska ah mar walba. Maanta oo dhan wax aad rabtidba ma jiraan dunida. Dunida inta badan waa unwanted. Life is all about unwanted emotions. Anaa ku dhahay emotions waxaad dareemaysaa aadan raali ka ahayn maanta oo dhan. Emotions aan raali ka tahay meesha ma jiraanba. Emotionska dadka ay dareemaan oo dhan waa emotions is raali ka ahayn. Marka qaar waxaad arkaysaa waxaana qiimo kula yeelanayn wixii qiimo lahaa. Sida caafimaadka marka haysatid waxaa la yiraahdaa qiimo ma laha. Markuu kaa maqan yahay qiimo leh. Markuu kaa maqan yahay qiimaha uu markaa haysto inuu qiimo lahaa sameeyo. Hadduu iga maqan yahay caafimaadka, hadduu iga maqan yahay, hadduu qiimo ila leeyahay problem fara badan aan kala kulmayo inaan helo ama xujo fara badan ay tahay inaan helo soo problem kala ma aha. Waa labo problem oo is wadata. Laakiinse markii aad haysatid ma dareemaysid lagu yiri. Caafimaadka markaa haysatid ma dareemaysid. Dhaqaalaha markaa haysatid ma dareemaysid. Guryaha markaa haysatid ma dareemaysid. Maxaa la yiraahdaa dhalinyarnimada markaa haysatid ma dareemaysid. Waa markay kaa maqan yihiin aad dareemi. Markay kaa maqan yihiin marka haddaan duqoobo waqtiga ma soo noqonaa. Ima soo noqonaa. Marka hadda ciwaanka waa ka baxay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo kaliya haddii problem aad gashid qof niyadda kuu dejiya meesha ugu badan ee shaqo gasho markaa problem gashid waxa waa maskaxda waa. Qof maskaxda kuu dejiya raadso. Qof maskaxda kuu qaboojiya. Problemka meesha u socdo inuu kula fahmo. Haddii problemku yahay problem dhaqaale, haddii problemku yahay problem qof aad jeceshahay aad weysay, haddii problemku yahay problem kelinimo, haddii problemku yahay problem maxaa la dhahaa caafimaadkaaga aad weyso isbitaal aad ku jirtid aad u walwalaysid. Problemka kula fahmo kula dareemo niyadda kuu dejiya saa jeceshahay kula yeelo. Dunida waxaa yar bini'aadan ka shaqeeya bini'aadan kale dantiisa.
wallahi adduunyada aad bay u yartahay. Camalka uu Ilaahay ugu jecel yahayna waxay tahay inaad ka shaqaysid qofka kale waxa uu jecel yahay. Walaalkaa kale wuxuu jecel yahay inaad ka shaqaysid. Laakiinse maanta aad bay u yartahay in la helo qof dantiisa ka hormarinayo danta qofka kale, gaar ahaan waddankeena hadday noqoto. Mid walba qof walba dantiisa u cararayo. Hadda ma rabo inaan qof eedeeyo, annagaa wada eedeysan haddaan Soomaali nahay. Waxaan rabaa marka inaan kaliya sheego problem walba oo maanta ku soo wajaha haddaad sii joogtid goob maxaa la yiraahdaa dadka ay aad ku neceb yihiin. Haddaad sii joogtid goob waa la dareemi kartaa dadka joogaan oo dhan aan careless ka yihiin problemkaaga. Wallahi problemka kugu sii siyaadaya bas. Haddii problem kale uu sii dhalana nolosha micnaha waxaa laga yaabaa inaad maskaxda ku dhufatid laga yaabaa. Marka isku day mar walba qof ku jecel oo aad kuu qadarinaya, ku dhegeysanaya, kula jaanqaadaya. Hadday noqoto inta u baahanta adoo hadlin fahmaya inaad raadsatid oo aad qofkaas ka ag dhawaatid mar walbana ka ag dhawaa. Waxaa la yiraahdaa surround yourself with positive people, kindness people, maxaa la yiraahdaa dad briefs ah, dad fikiraya thinkers ah, dad ka sheekeynaya fikrado inaad noloshaada ku xiriirisid marka hore isku dayo. Haddaad u baahan tahay successful inaad noqoto, haddaad u baahan tahay inaad guul gaartid, haddaad u baahan tahay inaad nolosha heer ka gaartid, dad positive ah inaad ka ag dhawaatid mar walba. Taasaan rabaa inaan idinla wadaago. Marka hadday noqoto qisan waan idinla wadaagi lahaa hadday macquul tahay. Waxaa la yiraahdaa problem ah waxaa dhacday qofka waxaa arkaysaa waxaa la yiraahdaa gabadha problem waxay la kulantay qof ay jeceshahay weyse, qof ay aad u jeceshahay weyse. Waxaa la yiraahdaa waxay sii gashay mistakes kale waxaa waaye in dadkii maxaa la yiraahdaa ay weysay qofkii ay weysay dadkiisa ayuu waxay ka rabtay inay iyada garab siiyaan. Hadday macquul ma tahay marka qofkii ay weysay dadkiisii ayay garab ka doonatay. Problem kale sii furay. Macnaha dadkan ayaga ka fogeeyeen qofkan iyadana qofkii kale dadkii qofkii weysay dadkiisa waxay ka doontay maxaa la yiraahdaa weli inay ka dhigato ay qiimeeyaan ay qadariyaan. Kadibna gabadhii problem ugu yaraan 15 sano, 17 sano, 20 sano ay problem kale usii dhiibayaan. Waa wax maxaa la yiraahdaa problem kale kusii dhiibo waxaa laga yaabaa marka maskaxda inaad kusii dhufataa laga yaabaa. Marka mar walba haddii adiga problem uu kusoo wajaho dadka ku jecel oo ku qadarinaya kor bay ku qaadayaan. Dadka aad ka ag dhawaanaysid ninka la yiraahdo Jack Ma shirkadda Alibaba iska leh wuxuu leeyahay I always haddii aan u baahanahay inaan soo hiring gareeyo dadka hadda Elon Musk iyo dadka taajiriinta ay dhahaan haddaad u baahantay inaad company asaastid you have to attract great people. Jack Ma wuxuu leeyahay if I want to hire people I always hire people who are smarter than I am. Saa aniga ahay qof ka caqli badan, iga horeeya, iga aqoon badan, shahaado inta aan wato shahaado kale weyn wata baan isla shaqeynaa, baan maxaa la yiraahdaa shirkaddeeda kusoo daraa. Qofkaas baan hore isii wadi karaa. Qof aan iga horeeya hore isii wadi kara maahane qof iga dambeeya hore ma isii wadi karo. Marka if you want to be successful you have to surround yourself with smart people. Smart people kana qofka waxaa waaye inuu qofka og yahay adiga problemyadaada. Macnaha qofka adoo u sheegin waa inuu fahmi karaa problemyada adiga ku haysta. Kadibna waa inaad isla xalli kartaan. Problemka adiga ku haysta qayb waa inaad ka xalli kartaa. Dhammaan ma wada xalli karta problemyada adiga ku haysta. Qofka kalena ka ag dhowdaa waa inuu asna kula xalliyaa. Marka haddii aad ka ag dhowdaa qof negative ah mar walba ku challenge gareeya. Xitaa haddii uu aaminsan yahay inuu gadaal ka raali gelinayo waxay ku tiraysa malaha waa waqti lumis wasted waa. Soomaalida inta badan waxaa arkaysaa qofka in marka hore la challenge gareeyo kaftan hadday noqoto kadibna gadaal laga raali geliyo lagu leeyahay gadaal waan isbaranaynaa barashadeena laakiin marka hore waa inaan ku challenge gareeyaa
gadaala maxaa la yirahdaa aan kaa raaligelinaa total waa qalad marka videogaas keliya raba inaan idila wadaaga maanta walaa waa waqti dambe 9 saac videoga markaan duubayo habeen wanaagsan aniga haddii habeen idin tahay habeen ay tahay wax walbay ku tahay waxaan ku dhihi lahaa aku wacnaato waqtiga sidoo kale subscribe iga hilmaami share iyo like iga hilmaami mar walba waxaa idinku ogahay in dadka kaaga dhawaanaysaan dad qiimo leh ay noqdaan dad qiimo leh qiimo ku yeeli kara mahadsantiin